inaad cuntada badbadasho iyo inaad samayso jimicsi oo aad qorshaysato waa mid adag. si kastaba waxaa jira cadaymo kala duwan kuwaasoo kaa caawin doona inaad cunto xaddi aan badnayn oo kaalori ah si sahlan. waa mid waxtar leh oo shaqaynaysa, lana tijaabiyey, waxaanay hoos u dhigi doontaa miisaankaaga. sidoo kale waxay ka hortag u noqon kartaa miisaankaagu inuu kordho mustaqbalka. halkan waxaan ku soo gudbin doonaa 9 hab oo miisaanka loo rido adoon bedelaynin cuntada ama aan samaynayn wax jimicsi ah. dhammaantoodna waxay ku salaysan yihiin baaritaano cilmiyeysan oo la sameeyey. walimkana qadar yar oo ogeysiis ah. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo, comment bixi, like saar, ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyadaanu soo gelino siina share. mahadsanid. yaree calaaliska. maskaxdu waxay u baahan tahay waqti xilliga cuntada si aad muddo kugu filan cuntid. calaali cuntada si taxadir leh. tani waxay kuu saamaxaysaa inaad si aad yar u xilliqdo, waxaana hoos u dhigaysaa inaad cunto badan qaadato. sidoo kale waxay sare u qaadaysaa inaad dareento inaad dharagtay iyo inaad wax yar aad cunto. baaritaano dhowaanahan la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka degdega wax u cuna miisaankooda uu kordho marka loo eego dadka qunyar wax u cuna. sidoo kale dadkaas waxay noqdaan kuwa aad u buuran amaba cayilan. weel yar isticmaal. ku cunida bileel yar waxay maskaxdu ka fikiraysaa inaad cuntay caadiyan intii aad cuni jirtay in ka badan. sidaas awgeed marka loo fikirayo si hufan qaadashada cuntooyinka aan caafimaadka u wanaagsanayn, waxaa habboon in la isticmaalo weel yar, waxaanay sabab u noqonaysaa inaad in yar cuntid. cun xaddi badan oo borotiin ah. marka laga hadlayo borotiinka waa mid saameyn awood badan ku leh xagga amateedka. tanina waxay sare u qaadaa inaad dareentid dhereg, hoosna ay u dhigto gaajada iyo inay kaa caawiso cunitaanka waxoogaa kaalori ah. cilmi baaris la qaaday ayaa lagu ogaaday in kordhinta qaadashada borotiinka 15% ilaa 30% kaalori ah ay kaa taageeri doonto miisaan dhimista. waxaana ka qayb galay 441 qof oo qadar yar oo kaalori ah qaadanaya maalin kasta. waxaana ka dhacay 12 kilogram muddo 12 isbuuca iyadoo aanay jirin wax cuntaa oo si gaar ah loogu diidayo in la cuno. inaad ku darto cuntadaada borotiin waxay si weyn loola xiriiriyaa inay rido miisaanka, xitaa jimicsi adoon samayn amaba isku hawlin inaad yarayso hanaanka aad wax u cunto. ka fogow cuntooyinka qaar. waxaa la soo jeedinayaa inaad ka dheeraato meelaha aad ka arki karto cuntooyinka aan caafimaadka u roonayn, kuwaas oo sare u qaadaya gaajada sababana inaad wax badan cunto. tanna sidoo kale waxaa lala xiriiriyaa inay miisaanka ay kordhiso iyo cayilka ama buurnida xad-dhaafka ah. waxaana wanaagsan inaad kadsato cuntooyinka caafimaadka waxtarka u leh sida midhaha iyo khudaarta, gaar ahaana meesha ay ishaadu ku dhacayso. cuntada fiberta leh. cunitaanka cuntooyinka fiberta ku qaniga waxay kaa taageeraysaa inaad dhereg dareento waqti dheer. daraasad la sameeyey ayaa muujisay qaadashada cuntada fiberta leh ay miisaanka rido. waxaa kale oo ay yaraysaa wax cunista. cunitaanka fibertu wuxuu hoos u dhigaa nafaqada dheefshiidka nuugo, waxaana ka mid ah biiniska iyo boorashka. fibertu waxay hoos u dhigtaa dheefshiidka. joogtee biyo cabidda. cabitaanka biyuhu waxay kaa caawinaysaa waxyar cunid iyo miisaan dhimidda, gaar ahaana cuntada ka hor. cilmi baaris la sameeyey ayaa hoosta ka xariiqday cabidda litir barkii oo biyaa cuntada ka hor 30 daqiiqo ay hoos u dhigto gaajada iyo qaadashada kaalori badan. ka bedelidda sharaabada sonkorta leh biyo waa faa'iido weyn. ha adeegsan elektarooniga. inaad mudnaanta siiso waxaad cunaysid waxay kaa caawinaysaa inaad waxoogaa aan badnayn oo kaalori ah inaad cuntid. waxaa la ogaaday dadka xilliga ay wax cunayaan daawada telefishinka, moobilka, kombiyuutarka ama ciyaaraha geemka ay qaataan xaddi badan oo cuntaa. ku fognaanta cuntada aad cunaysid waxay kaa caawinaysaa inaad wax yar cuntid iyo inaad miisaanka ridid. hurdada iyo warwarka. marka caafimaadka laga hadlayo badanaa dadku waxay istiidsiiyaan in xiriir ka dhaxeeyo hurdada iyo warwarka, balse xaqiiqdu waxay tahay in saameynteedu ay sarreyso marka la eego amateedka iyo miisaanka. yaraanshaha hurdada iyo sare u kaca heerka warwarka waa halis caafimaad oo keeni karta xanuuno kala duwan sida macaanka nuuciisa labaad iyo buurnida ama cayilka xad-dhaafka ah. sharaabada sonkorta leh. sharaabada ama cabitaanada sonkorta leh waxaa lala xiriiriyaa inay halistoodu sarreyso marka laga hadlayo miisaankaagu inuu kordho iyo weliba xanuunada. ku bedel sharaabada kuwaas oo caafimaadka u wanaagsan sida biyaha, kafeyga iyo shaaha cagaaran.